Soomaaliya oo sheegay in ay baarayaan meydadka 3 dumar ah oo maanta lagu arkay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. shacabka Muqdisho oo walaac ka muujiyay dhagaxaanta ay dawladda ku jirtay isgoyska dabka kadib markii la mari waayay ciriiri ka dhashay dhagaxaantaas. xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay dhagaxaanta ay ciidamada ammaanka ku jireen isgoyska dabka ee Muqdisho. ciidamada booliska Soomaaliya oo maanta qof darawal ah ku toogtay degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose. maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiye cusub u magacaabay degmada Hodan xilli aan wali la shaacin natiijada baaritaankii dilkii gudoomiyihii hore ee degmadaasi. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay hanaanka loo dhisayo golaha adeega garsoorka ee wansixiyay madaxweyne Farmaajo. shir looga hadlayo muranka ka taagan doorashooyinka dalka oo lagu wado in saacadaha soo aadan uu ka furmo magaalada Baydhabo. cudurka Ebola oo dib ugu soo labakacleeyay qaar ka mid ah wadamada Afrika. aynu ku horreysiinay qodobka ugu horeeya warkeena booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay baarayaan meedka 3 dumar ah oo maanta lagu arkay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir sidoo warkan ku faahfaahinayo waryaheena Farxaan Maxamed Xuseen. taliska booliska Soomaaliya ayaa war ka soo saaray haween saaki lagu dilay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. taliska booliska ayaa shaaciyay inay wadaan baaritaano la xiriira cidda ka dambeysay falkaasi. dadka ku nool degmada Dayniile gaar ahaan xaafadda Warlaliska ayaa waxa ay ku waabireen meydadka 3 haween ah kuwaasi oo la dilay aroortii hore saaka. saraakiisha booliska Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in 2 ka mid ah haweenka la dilay ay ahaayeen xaamilooyin. booliska ayaa sidoo kale sheegay in haweenka la dilay ay u jeedeen goobtooda shaqada isla markaana waxa ay booliska arrintaasi ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in 2 ka mid ah haweenka la dilay ay ahaayeen walaalo. saakay 12 barka abaari markay ahayd 3 haweena oo 2 isla dhalatay waxa lagu dilay soona Warlaliska baadina saas baa lagu dilay mid afaraad la socoto waa ka xartay saakay 12 barka abaari markay ahayd waxay ka shaqeynayeen gashaadka raashinka kari jireen deegaankii meesha Warlaliska degnaayeen mooto meesha ka raaceen markii raacay mootada iyadoo wax badan ay sadaqaaqina la joojiyay sidii lagu dilay waa fakadeenimo wallahi dadka deegaanka waa ka naxeen waa wax laga argagaxo ummadda Soomaaliyeed meelba ay joogto waa ka argagaxaysaa. falkan oo dadka deegaanka ay aad ugu argagaxeen ayaa ku soo aadaya iyadoo sidaan oo kale habeen ka hor deegaanka Siinka Dheer la soo dhigay meydadka 4 qof oo rasaas madaxa lagala dhacay. ilaa hadda lama garanayo cidda dishay dadkaasi shacabka ah ee xalay iyo habeen hore meydadkooda la soo dhigay Dayniile iyo deegaanka Siinka Dheer. shacabka Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay dhagaxaanta ay dawladda ku jirtay isgoyska dabka kadib markii la mari waayay ciriiri ka dhashay dhagaxaantaas. dhanka kale xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhagaxaanta ay ciidamada ammaanka ku jireen isgoyska dabka ee Muqdisho. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan. kadib markii ciidamada ammaanka ay dhagaxaan ku xireen isgoyska dabka ee kala qaybiyay degmooyinka Hodan, Holwadaag iyo Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa arintaasi waxaa ka hadlay shacabka iyo darawalada gaadiidka ah ee isticmaala isgoyskaasi muhiimka ah. isgoyskan ayaa kulmiya wadooyinka ka yimaada Bakaaraha, lambar 4, Waaberi iyo Sayidka waxaana dhagaxdan la dhigay bartamaha isgoyska kaas oo xaniba isu socodka qaybo ka mid ah wadada Maka al-Mukarrama iyo wadooyinkii isgoysyadaasi la isla gudbi jiray. gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa ayaa xilli hore ee shalay waxa uu xoog ku soo dhaafay bar control oo ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin isgoyska dabka kaas oo markii dambe ku qarxay nawaaxiga control ciidamada ay ka ilaaliyaan xarunta madaxtooyada ay ku yaala isgoyska Sayidka. 2 sababood ayaa la sheegay in dhagaxdan loo dhigay isgoyskan oo mid ay tahay sabab la xiriirta amniga iyo tan kale oo ah in lagu kala yareeyo mashquulka badan ee ka jira wadadaas. waxaase dadka qaar oo aan la hadalnay ay sheegeen in haatan mashquulkii hore mid ka daran uu ka dhashay dhagaxdan la dhigay isgoyska dabka. waa dhibaato bulshadu ku soo korortay sababtoo aan hadda saaka wadada dabka isticmaalay gaariga watay meel aan ka baxo waay yacni waa waxa la dhihi karaa waa dhibaato bulshada hor leh oo cusub sababtoo ah hooyadii umula odayga waayeelku isbitaal loo qaadi lahaa ani saaka meel shaqo u socday gaarigeeda hadda garaashka isaga xiray lug baa ku maraya wadada wallahi dhibaato weyn waa ilaahay anaga qabtaa dhiilha dawladda waxa uu baaqi lahaa inay xaalkan ka duwan ee keento oo shacabku u keento sababtoo ah shacabku waa shacabkeedii
bulshadu waa bulshadeedii inay wax walba fuudayso iidaa looga baahan yahay sidoo kale amniga inay sugtaan waa meesha ku jiro laakiin dhagaxa jidka dhexdiisa la iska dhiga bartamaha waa dhibaato weyn oo bulshada dhibaato leh saaxib saaka aad iyo aad wadada mashquul wahayd waxa waaye wadooyinkii xiriiri bay noqotay dawladda damaaqa waxay hadda ka filayso qaraxyadii shalab miyaa maaqan barnaamijka saaka markaan soo waabarisan waxaan aragnaa wadooyinku xiran iyo mashquul zaa'id ah hadda aniga waxaa ka soo wareegsanay madhawe meel dheer ka soo wareegsanay waxa waa dhibaato ku qabnaa marka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa wadooyinka rasaare roob wuxuu ku dhawaaqay wadooyinka la furayo hadda wadooyinka la xiran ma hadda la sheegay xataa barnaamijkan culays weyn waliba ma hadda xagga looma gudbi karo xagga hadii la tago jaam waaye mootooyinka meel isku dhaafaan male hadda looga sii daraba sababtoo ah baabuurtii wixii dhamagalay isla galay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucallimu ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay dib u eegis degdeg ah ay ku sameeyeen doonto dhagaxdan lagu xiray isgooska dabka ee magaalada Muqdisho Mucallimu ayaa sheegay in culays ay arintan ku yeelatay shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay wax ka qaban doonaan go'aanka isgooska dabka qayb ahaan loo xiray waxa uu abuuray culays dhanka dhaqdhaqaaqa shacabka ah dib u eegis degdeg ah ayaan lagu sameyn doonaa iyada oo had iyo jeer ahmiyad la siin doono daryeelka shacabka lana sii xoojin doono amniga ayuu yiri Mucallimu dhagaxdan la soo dhigay wadada dabka ayaa imaanaysa xilli dhowr bilood ka hor dawladda Soomaaliya ee dib u furtay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kuwaas oo horey loogu xiray sabab amni dartood ciidamada booliska gaarka ee Haramcad ayaa maanta degmada Afgooyo ku toogtay darawalka xeenay gaari sidii qudaar kaas oo la sheegay inuu ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaariga ayaa la sheegay inay saarnaayeen ku dhawaad 3 ruux oo ku jiro darawalka iyadoo labadii qof ee kale ay badbaadeen waxaana labada qof ay kala ahaayeen hooyo cunugeeda saraakiil ka tirsan ciidamada booliska gaarka ah ee Haramcad ayaa sheegay in ciidamada ku sugan kontaroolka ay ka shakiyeen gaarigaasi sidaasina ay xabad ku fureen balse KNN wili uma xaqiijin ila ka madax bannaan warka booliska wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa Cabdi Fataax Ciise loogu magacaabay gudoomiyaha cusub ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdi Fataax ayaa bedelaya walaalkiis oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdi Xakiin Dhagajoon oo la dilay 21 bisha January ee sanadka 2021 taasi oo aan weli la shaacin natiijada baaritaanka dilkiisa gudoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdi Xakiin Dhagajoon ayaa ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya waxay ku dileen wadada aada isgoyska aadan cadde kadib markii gaarigii uu saarnaa ay rasaaseeyeen gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay hanaanka loo dhisay golaha adeega garsoorka ee uu saxiixay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warkan waxay noo faahfaahinaya wariyahina Cabdiraxmaan Axmed Gacal gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa ka soo horjeestay hanaanka loo dhisay golaha adeega garsoorka uu saxiixay madaxweyne Farmaajo warqoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa lagu sheegay in magacaabista golahan uu baalmarsan yahay dastuurka isla markaasina aysan soo magacaabi karin golaha wasiirada sida ku cad qodobka 112 ee dastuurka taasi oo aan golaha u ogoleen inuu magacaabo gudiyada madaxa banaan uu ka mid yahay gudiga adeega garsoorka qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha adeega garsoorka ay ku jiraan gudoomiyaha maxkamadda sare ee xeer ilaaliyaha qaranka kuwaasi oo sida uu qabo sharciga dhisida golahani magacaabistoodu tahay ku meel gaar guddoonka aqalka sare waxay sheegeen inaysan soo gaarin wax go'aan xukuumadeed oo sharci ah kaasi oo lagu meelmariyay xubnaha la magacaabay ee adeega garsoorka si uu u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ugu dambeyn golaha aqalka sare ayaa soo jeediyey in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda inay joojiyaan ku xadgudbidda qodobada dastuuriga iyo shuruucda dalka inta laga soo dhisayo hay'ado dastuuri ah oo cusub una hoggaansamaan dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda kale ee dalka golaha adeega garsoorka ayaa waxaa horay u ansixiyey xildhibaanada golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweyne Farmaajo iyadoo aan loo gudbin golaha aqalka sare shir looga hadlayo muranka ka taagan doorashooyinka dalka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan uu ka furmo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warkan inoo soo diray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ku sugan 14 xubnood oo ah guddiga laga soo kala xulay dawladda federaalka dawlad goboleedyada gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa saacadaha soo socday in magaalada Baydhabo ay ku yeeshaan shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka iyo xalka gaarida qodobada ay ku muransan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood oo salugsan qaabka doorashada dawladda Soomaaliya ay u maareynayso xubnaha guddigan
ee ku shiri doona saacadaha soo socda magaalada baydhabo waxa ay ka wada hadli doonaan sida uu u dhici lahaa shirka madasha wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ajendaha looga hadli doono shirkaas iyo goobta rasmiga ah ee lagu qabanayo shirka inkastoo weli dowladda federaalka Soomaaliya ay ku adkeysanayso in lagu qabto magaalada Garowe oo dhawaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay amniga magaalada baydhabo ayaa ah mid aad loo adkeeyay iyadoona qabanqaabada shirka gudiyada ka kala socda dowladda federaalka gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada ay ka socoto madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixinta iyo go'aanada ka soo baxa shirka saacadaha soo socda ka furmi doona magaalada baydhabo ayaa go'aamin doona halka uu ku qabsoomi doono shirka wadatashiga dowlad goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya oo aan cadeyn halka rasmiga ee shirkaasi oo ka dhici doono maxamed cabdiraxmaan cabdulle raadiyo kulmiye magaalada baydhabo midowga musharaxiinta ayaa goordhow ku dhawaaqay dibadbax ballaaran oo lagu diidan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qaban doonaan maalinta Jimcada ay soo aadan ka oo ka dhici doona magaalada tan Muqdisho wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim oo ku soo goobta uu shirka ka socdo ayaa qadka telefoonka si toos ugu jira Axmed soo dhaw waa masantahay maxamed cabdiraxmaan sayaanle waa sidaas sheegtay midowga musharaxiinta oo kulan saacado qaatay ku heshay magaalada Muqdisho waxay ku dhawaaqeen maalinta Jimcaha lagu qaban doono magaalada Muqdisho dibadbax weyn kaasoo lagu soo horjeedo doorasho la'aanta dalka muddo ku dhex jiro isla markaana waxay tilmaameen in hay'adaha dowladda hadda joogta aysan hali ka ahayn doorasho dalka ay ka qabato waa sida hadal ku dhigeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha suurtagal aysan ahayn in dalka doorasho la'aan ay sii ahaato isla markaana loo baahan yahay in dowladda xal arrintaas ay ka gaarto aysan ahayn hay'adaha ay si xumaan karto xaaladda guud ee dalka madaxweyne sheekh shariif waxa uu sheegay in hay'adaha maalinta Jimcaha sababta ay u qabanayaan dibadbaxaasi uu yahay in hay'adaha mid ay ku dalbanayaan doorasho dalka laga qabto maadaama mudxuleedka dowladda uu dhamaaday isla markaana ahlan jirin hadda faalo doorasho dalka kaga dhici karto wuxuu intaas sii raaciyay in doorashada dibadbaxaasi uu yahay mid nabadeed oo isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay looga baahan yahay in go'aankooda ku aadan arrintaas ay cadeeyaan maalinta Jimcaha si dalkan loo badbaadiyo isla markaana xal waara loogu keeno وسيدو هذا الكود هي وحكوا أنت يصير عين مشرفينته إن محيرة أمن حمو لو توجوا يجناه مجرد مقدشوا ساكن ودوينكي محيرة هذا دكتور أنت بكمل على الحري هذا الكلام بجان وحي تصير عيون لبا إن محيرة هذا برد عين معصوب أو درس قبل كبيرو أمن المجال المقدشة فرع كثير بحيو أرنت أصنعي تهاي مسكها سليم كهي عن القادمين waxay ku baaqeen in gobolka Gedo dad Soomaaliyeed degan balse ciidamada marwal ugu daaburay oo ay u baahan yihiin in magaalada Muqdisho lagu ilaaliyo si xasilooni loogu soo dabaal maadaama magaalada Muqdisho ay tahay halka dawladdu ay degan tahay aad buu mahadsan yahay wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim oo ku sugan halka uu shirka jaraa'id ay ku qabanayeen madaxweynayaashii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu kaasi ugu yaraan 4 qof ayaa cudurka dilaaga ah ee Ebola ugu geeriyootay wadanka Gini si gaar ah koonfurta dalkaas sida ay sheegayaan ilaha caafimaadka ee dalkaasi gobolka Nasirikore oo ku yaala koonfurta dalkaas ayaa waxaa lagu arkay dad qaba astaamaha muujinaya cudurkan Ebola kasoo 4 qof ee gobolkaas ugu dhintay xanuunkan markii ugu dambeysay ee lagu arko kiisaska Ebola ee wadankaas ayaa waxay ahayd sanadkii 2016 oo iminka laga joogo 5 sano waxaana hadda Ebola la ildaran ugu yaraan 8 qof sida ay ilaha caafimaadka ee dalkaasi sheegayaan